wafdi culus oo hogaaminayaan wasiirada maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Gabiley oo ay weheliyaan maamulka heer gobol iyo heer degme Gabiley ayaa maanta soo kormeeray jidka u dhaxeeya deegaanka Kalabaydh iyo degmada Togwajaale oo haatan gabagaba ku dhow ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirada maaliyadda iyo madaxtooyada hay'adda ADA baan kormeeray halka wadadii Wajaale marayso gabagaba marayso wadadii Wajaale waa arkaysaano waxiidii taalo oo ay garaacay cagafida ku jiraan oo indina ay hayaan iyo wax laamigi la dhigay 2 kilomitir baa waxaan wax la dhigin imka jira 2 kilomitir insha Allah taala inta la dhameystirayo waxaan rajaynayaa taala waxaan rajaynayaa in sidii aan ballan qaadnay in February dhamaadkeeda ay dhameystirto biidnaa taala had weyn bay noo tahay wasiirka madaxtooyadu isaga runtii hawsha wadooyinka waxa saaran Kaabaaliyo wax weyn buu ka qabtay wadadana dowr jaroon nimid mar walba inta soo kilomitir la dhameeyay ayaanu nimid maanta waxaan u nimid inaanu eegno 2 kilomitir hadda dhamaaday kuwa hadda hawshoodu ay socoto oo runtii kuwii ugu dambeeyay ah oo iyaguna si wanaagsan ku dhamaan doona aad baan runtii ugu faraxsanahay ballanqaadkii xukuumadda iyo mataqaana kii madaxweynaha oo sidoodii u fulay sidoo kale barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi iyo maayirka degmada Gabiley Shacay Maxamed Muuse ayaa ganacsatada reer Togwajaale ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhameystirka jidkan u dhaxeeya Kalabaydh iyo Wajaale ugu dambeyntii wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa soo kormeeray wada banayn lagu sameeyo tuulada Kalabaydh iyo u sameynta qorshaha Tom Blanca oo maalmihii u dambeeyay dawladda hoose ka waday gudaha magaalada Kalabaydh ayaa waxa uu ugu horeyn uga warbixiyay maayirka degmada Gabiley Shacay Maxamed Muuse hadaan degmada Gabiley wasiir inaanu wax qabadka sare ee aad wado ee wakiil ka tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu anagu degmooyinka ilaa tuulooyinka soo gaarsiin magaaladaas degmo ma ay wato laakiin waxaan garanay inaanu wadooyinka ilaa meeyadu sameeyno si socodka wasiir waxaan ka codsanayaa in ugu ducayso oo barakayso si aan hore ugu socono oo Gabiley insha Allah hadaba inuu xukuumadda wax qabadka iyo horumarka maanta inaynu insha Allah waqti ka faa'iido ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan ugana mahad celiyay dawladda hoose degmada Gabiley qorshahani Tom Blanca loogu sameeyo magaalada Kalabaydh iyo wada banayntani ilaahay mahadi weeye hadii maanta Kalabaydh wadooyin laga jeexayo markii hore waxa shaqada adkay wadada Kalabaydh iyo Wajaale la bilaabo maanta Kalabaydh gudaheeda la laamiyo iyo wadooyin laga bilaabaya aad baan u faraxsanahay aad baan ugu amaanaynaa ugu dhiirigelinaa dawladda hoose Gabiley gobolka inay haday tahay Gabiley haday tahay magaalooyinka kale waaweynba ka bilaabaan wadooyinkii aad baan u faraxsanahay waxaan insha Allah taala waa dhiirigelinaa waa ku gacan siinaa waa ku garab taaganaa aad waxaana kamid ah hadaladiisii Cabdiraxmaan Xaaji shabakada wararka Gabiley News Gabiley